beysay caawa tartanka natiijada ayaa wuxuu noo soo gudbin doonaa gudoomiyaha waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka wada qayb qaadatay barnaamijkan oo ugu horeeyo taliyaha xaruntan oo ah taliye cali xirsi barre oo ah gudoomiyaha xarunta oo agoonta gacanta ku haya iyo madaxda ihaad ee joogta dalka iyo dibadda iyaguna taabagelinaya barnaamijkan quruxda badan ee agoonta lagu dhiirigelinayo ee tartan aqooneedka ah insha Allah iyagoo waliba u ballan qaaday berri dambe oo ay agoontu ay u soo wadaan ciidoodii iyo dharkii ciid ay ku ciidi lahaayeen aad bay u mahadsan yihiin ayaan leenahay haddana waxaan sii gudagelaynaa insha Allah natiijada inaan soo gudbino annagoo isku duuban arday iyo macallin iyo madax dhammaan intii khusaysa xarunta si guud si gaara waxaan ugu ducaynaynaa ugu mahad celinaynaa hay'adda ihaad ee islaamiga ah gaar ahaan tiimkeeda ku sugan dalka Jarmalka waxaan leenahay insha Allah Ramadan Mubarak ciid wanaagsan iyaduna waa idin leenahay maadaama ciid ay soo dhawaatay insha Allah mas'uulkooda xamar u jooga ama Soomaaliya u jooga Maxamed Faarax iyo Supervisor Faadumo iyaguna insha Allah aad baan ugu mahad celinaynaa maadaama ay nagu soo xiriireen hay'addan islaamiga ah ee jecel inay agoonta iyo masaakiinta mar walba ay garab siiso aad baan ugu mahad celinaynaa haddana waxaan ku wareejinayaa hadduu Ilaahay yiraahdo gudoomiyaha tartanka Professor Cali Macuud Dalha si uu u soo gudbiyo natiijada caawa labadan gruubka soo baxay iyo jawaabihii la weydiiyay say u kala saxeen insha Allah daawasho